halyeeyigii muslimka ahaa ee reer Liibiya waa Cumar al-Mukhtaar oo lagu naanaysi jiray libaaxii saxaraha. ninkii ay magaciisa ka dhigfaari jireen gumaystu. Bismillaah. Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal, kadib muddo bil ah oo ayna halkan wax muuqaal ah ku soo gudbin. Ugu dambeyntii waan soo laabtay saaxiibayaal. Maanta waxa aynu ku jirnaa safar taariikhi ah oo ku saabsan halyeeyigii muslimka ahaa ee reer Liibiya waa Cumar al-Mukhtaar oo lagu naanaysi jiray libaaxii saxaraha. Cumar al-Mukhtaar waxa uu dhashay sanadii 1862 deegaanka Suwiid ee bariga Liibiya. waxa uu ka soo jeeday khabiirka Magaahira oo kamid ah beelaha reer miyiga ee ku noolaa dalkaas. intii uu yaraa waxa uu u go'ay waxbarashada cilmiga diinta Islaamka, isagoo wax ku bartay xarunta caanka ah ee Sawiya al-Shuhab. Cumar wuxuu ahaa nin cilmiga diiniga aad u wanaagsan, sidoo kalena lahaa aragti qoto dheer oo ku salaysan xorriyadda, cadaaladda iyo diinta Islaamka. markii ay Talyaanigu ku soo duuleen Liibiya waa sanadii 1911, Cumar al-Mukhtaar waxa uu bilaabay dagaal hubeysan oo ka dhan ah gumaystaha, wuxuuna horkacay kooxo mujaahidiin ah kuwaas oo dagaal goos-goos ah kula jiray gumaystihii Talyaaniga muddo ka badan 20 sano. wuxuu ahaa hogaamiye xeel dheer oo ka faa'iideysan jiray deegaanada buuraleyda ah si uu u dhigo weeraro lama filaan ah. wuxuu adeegsaday xeelado dagaal oo dhaqso leh, isagoo ku dhufan jiray oo ka carari jiray. waa dagaalka loo yaqaan ku dhufo ee ka dhaqaaq, yacni qaab dagaalka gurilaha. Talyaanigu marar badan ayuu ku guuldareystay inuu qabto, laakiin ugu dambeyntii sanadii 1931 Cumar al-Mukhtaar ayaa lagu qabtay dagaal uu hogaaminayay, waxaana loo qaaday magaalada Benghazi, halkaas oo lagu maxkamadeeyay si cadaalad darro ah. Cumar al-Mukhtaar inkastoo ahaa nin da' haddana waxa uu ku adkaystay inuu sii wado jihaadka oo uu dagaalamayo dalkiisa iyo diintiisa. waxa uu yiri, ma ogolaanayo in la cabsi geliyo halganku. waxa uu socdaa muddo 20 sano ah oo sii socon doona. Talyaaniga ayaa ku xukumay dil toogasho ah subaxnimadii 16 Sebtembar sanadii 1931. Cumar al-Mukhtaar waxa uu wajahayay xukunkiisa isagoo leh iimaan, geesinimo iyo kalsooni. waxa lagu hortogtay boqolaal dad ah si loo cabsi geliyo, balse halkii ay ka cabsan lahaayeen geesinimo ayay ka sii qaadeen. maanta Cumar al-Mukhtaar wuxuu astaan u yahay halganka ka dhanka ah gumaystaha. waxaa lagu xasuustaa geesinimo, iimaan iyo kalgacayl uu qabo dalkiisa iyo diintiisa. dalkiisa Liibiya waxa uu aqoonsaday halyeey qaran, waxaana magaciisa lagu xardhay lacagta dalka, garoomada, dugsiyada iyo taariikhda qaranka. Cumar al-Mukhtaar libaaxii saxaraha, ninkii ay magaciisa ka dhigfaari jireen gumaystu, waa uu dhintay, laakiin magaca iyo manhajkiisii wali waa uu nool yahay. haddaba saaxiibayaal, halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkiina maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.